iimaanku bay yidhaahdaan saddex goor buu qofka mu'minkii guulaystaa. kow, iimaanka markuu qofka mu'minkii hela bay yidhaahdaan wuxuu helaa iطminaan alqalb wa raaxat albaal wa istiqaamat almanhaj buu helaa bay yidhahdaan. qof qalbigiisu xasiloon yihi, warwar iyo walbahaar aan qabin, psychologically degan, dariiq saxa haya buu noqdaa. dunidaynu maanta joogno waxaa ka xanuunada ugu badan maanta dadka bini aadamka ku dhaca waa kuwa caqliga iyo maskaxda iyo neerfaha iyo waalida keena iyo isdilka iyo baliya baaskan. iimaanku wuxuu keenaa maxay? alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub, iطminaan alqalb iyo raaxat albaal. psychologically qofku inuu dego, inaanay dunidu mashkiladba ku noqono wax weyn la ahayn, inuu haysto meeshan uu joogaa inay tahay daaru ibtilaa wa imtixaan, qadarka ilaahay inuu kalsooni ku qabo. waxaasoo dhamme waxay abuuraya inuu qofku naf ahaan xasilo, inuu rumaysan yahay dariiqii saxa ah inuu hayo, istiqaamat almanhaj. kaasi waa mar labaadee qofka mu'minka ee dhabtahay wuxuu helaa bini aadamku uu iska ammaan jecel yahay in la magacaabo, xagga rabbi inuu ka magacaaban yaho laga ammaanayo. waxaan qur-aan badan ilaahay ku tilmaamaya fadkuruunii adkurkum. qofka addoonka ixusa anaa idin xusaya baa ilaahay ku leeyahay. haddaad mala iga xustaan mala-un khayrun minhu baan kaa xusayaa baa ilaahay leeyahy. meeshaad joogto mala ka khayr badan. waxau nabigu tilmaamaya ilaahay qofku jeclaaday jibriil buu sheegaa, wuxuu idhaha hebel waan jeclaaday ogow. jibriil baa sama la hadla malaa'igta joogto, wuxuu idhaha hebel jeclaada, ilaahay baa jeclaaday, ilaahay ay dhulka u soo degto. la yidhahdo qofka ilaahay baa jeclaada. idan magac iyo maamuus buu cinda allaahi ka helaa. rabu samaawaati walardi baa magac iyo maamuus siiya. akhiiranna xisaab yasiira iyo jannu helaa. maalinta qiyaame in ilaahay u fudaydiyo 50,000 sannadood maalinaba kaa dambayso la isxisaabinayo. maalintaa xisaabteeda in ilaahay u fudaydiyo, abaalmarkiisuna inuu noqdo maxay? janno u galo. saddexdaa dufcaba waxa la socda bay yidhaaheen ridwaanullah wa rida allaahi akbar min kulli dalik. ilaahay inuu reer raalli yahay. mar kale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa qofku waxa ugu weyn uu haysta waa caqiido, waa diin. hadduu diintiisu badbaado inuu guushii ugu weynayd gaadhay, hadduu iyada waayana inuu guuldaradii ugu weynayd ay ku dhacday. inagu marar badan dadku waxay ka fakeraan ilmahaagu hadduu dhakhtar noqdo lacag helo caynka, wallaahi de waa nin ragowno istaberiyo waxaad u haysataa inuu guulaystay, walow diintaba ha ka tagane. hadduu nin iska miskiin oo meelihiisa iska jooga laakiin diintiisa iskaga mitana, wallaahi de midna waa wadaad yaroo meelaha masaajidu iska joogjoogaye, waxa dhiba cidna kuma haya laakiin naf badan ma leh, isna wax ma taransan, reerkana wax ma tarin. yani nin uun meelaha iska joogjoogo oo tamartiisu aanay badnayn ayuu muuqday. maynu aragnay inuu guulaystay dhakhtarka noqday ee lacagta een garaynaya. laakiin xaqiiqadu waxay tahay إلهي قرآن كوحولي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إلهي وحولي دادك مؤمنين تا إلهي الرسول بالرمية إلهي تيسا ودرريو ما يدين تصيح وحاكو قولي سنسا تجارو أن خسار الله إنو عذابك إلهي دين كبد بعدين سما يدين شيئا وحالا يدي إيمانك قاتو إلهي الرسول بالرمية تا إلهي ودرروكا محا أبا المرو ليدين حدا صايا شان أبا المركي نوامحي وأدن بيجي نولا دافو جنة إلهي دين قليو قرية في عنو جنة ليدين كسيو جنة النجاديجو أدكتان ذلك الفوز العظيم بإلهي. هداد ليبان وين ربطانا كاس بقى بإلهي الليبان توين كو وهذا الدنيا ده وحنو بهنا ينا نقول هذا كحق بدنا ينا كان يلا ينا نقول السنة أرنكاس واحد جه إلهي وحلا وأخرى تحبونها نصر من الله يميت كلا يدون كأشيء نوع إلا يدين قوليه تنكلا وأخرى تحبونها ويا ما هم مين بوينت كوا محي وهنا اللي بانتو ولدن لقبي إلهي محيري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar maxaa ku xiga dalika alfawzu alkabiir baa ilaah yidhi waa kuwii la gubay hadda kuwii iimaanka laga helay iyo camalka saalixa ahi waxay leeyihin baa ilaah yidhi jannooyin hoosteeda ay biyo dareerayaan webiyaal dareerayaan war dalika alfawzu alkabiir baa ilaah successka weyni waa kaas baa ilaahay leeyahy guusha weyni waa kaa idan waxaa layna barayaa walow la dilay inay guulaysteen walow la dilay oo la gubay waxaa loo dilay sidii ugu fool xumayd inuu qof bini aadama loo dilo qof isagoo nool la kariyey oo la torture gareeyey ayaa ilaahay inooga warramaya haddana waxaa la yidhi kuwaasi waa guulaysteen baa la tilmaamaya kuwaasi waa guulaysteen waxaan kusoo koobaya markaa waqtigu waa iska dhammaad waxaan kusoo koobayaa adduunku wax weyn maaha ilaahay gaalada muslimka guulaystay waxaasoo dhan wuxuu leeyahay laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad gadgadoonka kuwa gaaleed ay dunida iyo dhulka gadgadoomayaan ha ku kadsoomina baa ilaah yidhi war intan aa aragtaan baa ilahay leeyahy waa mataacun qaliil waa bedhbedhsi yar waa raaxa aada u yar uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad waa ruuxa ka dambeeya waa jahannamo baa ilaahay yidhi oo meel gogolnayadaa u xun meel la galana taasaa u liidataa marka intaan ha ku kadsoomina ilaahay wuxuu leeyahay dunidu ma aha meeshii cadaaladda ilaahay kama dambaystaa laga muujinayay dunidu waa daarul ibtilaa waa la is imtixaamaya wanaag baa lagugu imtixaamay nablukum bilkhayri washari fitna khayr iyo barwaaqo iyo caafimaad waa lagu eegi waxaad ku yeeshay miyaad ku sii kibri waa lagu eegay imtixaan kale baqa iyo cabsi iyo xanuun iyo faqri iyo dhib kale waa lagu eegay tasbir dabeetana saa daraaddeed ilaahay wuxuu yidhi walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar war dadka waan u kaadinayaa baa ilaahay leeyahy ha u malaynina baa ilaahay leeyahy in ilaahay moog yahay kuwa dulmiga sameeyaa waxay wadaan in ilaahay ka qarsoon tahay ha u malaynina laakiin ilahay wuxuu leeyahy inamaa yuakhiruhum ilaahay judgmentkooda wuxuu dib ugu dhigaya abaalmarintooda dee maalinta abaalmarinta ilahay wuxuu leeyahy inamaa yuwafawna ujuurahum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari ninkii dadka waxaa loo dhammaystiraya qof walba abaalmarkiisu waa maalinta qiyaama waa suurtagal dadka badh abaalmarkooda wax ka mid ah in dunida loogu soo horumariyo waa suurtagal waa suurtagal dadka qaar ka mid ah ciqaabtooda inay dunida ugu soo degdegto laakiin asalku waa maxay asalku waa yowm alqiyaama sida awgeed qisadan markaan soo koobo laba halun baan anigu uga dan leeyahay midi waxa weeyaan inaynu garanno maxaa guul iyo maxaa guuldarro ah maxaa guula maxaa guuldarro ah goormaynu ubadkeennu noqdeen kuwaynu ku guulaysanay goormay noqdeen kuwaynu ku guuldarraysanay markaynu naar ka badbaadinno jannana u horseedno waynu ku guulaysanay markaynu taa awoodi kari weyno waynu ku guuldarraysanay waa ku guuldarraysanay waa inamaa amwaalukum wawlaadukum fitnadii bay noqonayaan waa kuwii uu nebi nuux lahaa man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu ilaa khasaara mid aan xoolaha iyo caruurtuba khasaare mooyaane wax kale u kordhinaynin mas-uuliyaddeennii waa gabaynaa ka labaadna waxa weeyaan war haddaynan meeshan ka tegaynin oo sixirkan joojinayn gebigiiba waynan dhulkeenna islaamkiiyo wixii tegaynin we should waa inaynu yeellaa inaynu wixii dadkan badbaadin lahaa samayno madrasadii raahibku waa inay jirtaa qofkan wixii badbaadin lahaa dugsigan wuu ku qasban yahay halkan kuma noolaan kartid isagoon iskuul dhiganaynin ama home school ku sheeg ama ka kale ku sheeg ma ku noolaan kartid bilaa iskuul wuu joogayaa iskuulkana wuu dhiganayaa haddaba siduu u badbaadayaa ilaahay baynu u baryaynaa uu iska badbaadayaa ma jirto ilaahay wuxuu badbaadinaya markaa isagaa badbaadin laakiin adigu hawshaadii waad gabta waa dhab inaynu foqorannahay waa dhab inaynu laajiniinnahay waa dhab in aqoontaynu yar tahay waa dhab waxgaradku inuu nagu yar waxaasoo dhan waa dhab laakiin waxaa kaloo dhaba mas-uuliyaddu inayna saarantay haddii aynu markaa u kacnana bini aadan baynu nahay waxbaa qaban karnaa bini aadan baynu nahay aadanuhuna isagaa loogu talagalay dunida inuu wax qabto aadanuhuna isagaa loogu talagalay inuu wax qabto haddaynu seexanno oo quusannana
gabaygii shaafici muxuu sheegayay imaam shaafici oo gabiya wuxuu leeyahay wardoontu saxaaraha kuma socota buu leeyahay meesha haddaad inta doon soo qaado tiraahdo maxay dhulka u jeexi weyday dee suurtagal ma baddaa la dhigaa markaasay maxay doontu dhaqaaqaysaa maxaa ilmahaygu isaga hagaagi waayey malcaamadan geeya sawta qur-aanka loo dhigo dee qur-aanka alxamdulilahi unbaa lagu yidhaahda alxamdulilah isaga yaqaanaba af carabi uu dusha ka qayba un weeyaan hadhowna waa ilaabaa waxba kale maad barin idan waxaynu u baahannahay dadaalkeenna inaynu isugu geyno inaynu ugu yaraan madrasada raahibka abuurno ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobaynaa waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid qumman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqawmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica marka waxaan leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kalimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto walidaalika baa ilaahay reer banu israa'iilkii hagaagay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqinuun yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay yidhi sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay mashaakil kugu badan doonaayo waa bini aadam waxaan kaloo idinka hor imanayaaye yaa idinka sabir badinin baa ilaahay leeyahy waraabituu fii thuquurikum goobaha aad ku jirtaanee dhufaysyadiinana xejista ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala intaa kadib waxaynu u baahannahay nooc min alxikma nooc min alxanaka nooc min allabaaqa nooc min alrifq iyadoo mabaadi'da ku xejisanayno haddana inta aynu si fudud wax u wadi karno inaynu u wadno marka qofka la yidhaha diintaada xejisa dadka barhba u fahmo uun cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidhamaqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xejiso laakiin dee martaa tahay usluubna u noolow yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira wamaa yadakaru ilaa ulil albaab caaisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiskii sheekheynku warinayaan qolaa nabiga u timi iyagoo dee ku jeesjeesaya oo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assalaamu laamkaa laga boodayaa laakiin waxaa la iska dhigayaa in iyadii la yidhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar
السلام عليكم نوا ربي هكو حفديو nabadgelyo wana korkaaga ahaado assalaamu calaykum waa mawd iyo geeriyo balaayo korkaaga ahaato dabeetana Aisha inta carootay markiiba waxay tiri bal wa calaykum assalam wal la'ma idinka arada alle iyo geeridiisa iyo nacdashiigu korkiina idinka ahaato bay tiri nabigu calayhi salaatu wassalaam isagoo kuwana maqlaya wixii ay yiraahdeen Aishana maqlaya waxay tiri أيو عائشة هدنا تلصين يا وحلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكوسي دبع سن تتكون مرية يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسال الله سمايو أي قال عليه سبحانه وتعالى عائشة وحي مود نبغين أنو مغلين ملا مرتني يعني وركيبانو مغلينه أولم تسمع ما قال وحي كهد لين مياد مغل إلهي رسول كيسيو قد قلت وعليكم بالنبي ومقلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحنا قدر لنا هي حديث الرواية إمام مسلم حيث الإمام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلا إمام مسلم ورينا الرجينا يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه waxaan uga dan leenahay caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xijisano taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuuro lagama fahmayo ee waxa laga fahmayaa inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan qadiyada kale aan tilmaamayo waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tegaynaa waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba'aynaa dawabaan mise indimaaj halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la yidhahdo maxay assimilation iyo integration dadka baadh bay yidhahdaan giitobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhexeeyaanoo waxay galaan maxay integration giitooga waa intaad meel isku qafilso xero yareeda wax walba may tidhaahdo taa dee adigunbay kaa suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha in haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagii baa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inugu wacdiyaan inanaan u baahnay inaynu fahamno la yidhahda integration meel walba waxaa la leeyahay integration politicians iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan tacadudku iyo noocyadka kala gedisan waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihiin laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedo dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin لكن هذا يقول إن الانتجريستو واضح لكن لبا ويرد وينهم كلا قرنا ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي إنه قلنا كودا ينو أو حول بكا قاضنا إنه وحكفا إيدنا أقولنا ككرسنا وحوين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نينين inaynu ka qaadano weeyaan laakiin masaa'ilka aqaa'ida iyo diinta iyo akhlaaqiyadkeena iyo cibaadaadkeena waxayna inaynu ka tanaasulo maaha marka waa inaynu kala garannaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay dhici doonto latattabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaa raaci doontaan buu nabigu yidhi wadooyinkii dadkii idinka horreeyay taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyay markaasuu nabigu wuxuu yidhi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumuuh xataa hadday godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu yidhi markaasaa waxay dhahay yaa rasuula allahi alyahuuda wanasaara ما يهوديا نصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلام
maalin kale haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaase waxay dhahay alruuma walfurs ma romaniska iyo bershianka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi caleyh markuu labada xadiis ba fasiraya wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabka ku saabsanna wadada romaniska iyo bershianka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaa raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkani inoo tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuud iyo nasaara muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershian muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leediin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu experience-ku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayno inaynu garanno ilaahay markuu qur-aan ka warramayo ambiya ilaahay ka warramay في سورة مريم بان رجينيها أنبياء إلهي كورمي نبي هبل نبي هبل نبي بركي أنبياء الله كورمي أي إلهي اسكو الصوت ضوضوبة وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسبا إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلنا أنت أنو هنون نبي إلهي لي إلهي كيس مركب مقلان وخضوع عنا وسجوده لكن جروب كان النبي هذا كبحسن ما إلهي طلب ما بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوة ضبام مريبة إلهي لي وهو ضده دي كوع عدم حي سماية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي اسكر راعين كواسي نارتي قليا مالوت الماما محاق وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دل لنا لنا حي وين نقرنا وحي هاي سنينو وين نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحنوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa kamida مثلا الله يحط الماء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحددك كو آخر دابا إلى هيدي وركي كي أنو آيات قسيني مدين قرن أيوها حاكو دعي فانسلخ وكسيب ميبا إلى هيدي دابا شيطان يقلوب كاسو كبير كا إلهي مركو تلمامي وحاليدي فمثله إلهي وحو مركو صوت تلمامي هدي إلهي دون يوقف كان يقف سقم بنقول الله وكال صاشيك وحاليدي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي يقبول لمدي باليدي أي هدي اللي إريانا عربك والله الله ديا هدوس كفرديانا عربك والله الله ديا حولاك الأسيدة معها حولاك لمركا كوليل يو حاضر يمان بي حراريودان marka ay seen nabad qabaan de ma harariyoodaan aygu laakiin markastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan haday diin loo sheegay hadaan loo sheegay waa isku mid ilaa marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor de wadaad qori kitaab xoor ma hadaynu wadada wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuun buu xoorayay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaytaanka qura maaha dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadiina gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi